بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان مبارك دمانتين به وهو روح السلام يا قاسمة جود وسرد أنا يرتي عيارها ولسان بحجينك قبلكم مرة الشيخ دومية هذا قاسمة جود هذا الصنيو مدحت قصة UNFPA والدينتا معلمينتا أرديدا قلنا شمينيسا دمانتي واحد يقول السلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام رنتي شرف وين بينه وطي دمانتين إن ما أنت نذكر سوق يبقى نقوم شغلنا إذا كأنه أرديدا هل كان أتكو قلنا شمينيسا عبارتي حرفدا كلا دوان هل كان كقران تاسيو كتر شمينيسا بالشدة إن يدنا يرتين إنه يفهمين إن حرفدوها يهين أي قيبوا يكيهين هرمرك نوشة أساسية حرفدوه waxay ka qayb qaataan jihaynta shaqo taga la dagaalanka shaqo la'aanta horumarinta qofka bini'aadmiga inuu dhaqaale ahaan hormaro inuu helo xirfad iyo tuulo ku shaqo tago taasi waa tamaanta dunida u guureyso ee loo guuray nidaam xirfada ah in ay bulsho kasta barato ardaygu isagoo wax baranaya oo iskuulka ku jira oo jaamacadda ku jira ayaa waxa loo sameeyay in hadana fursad kala helo oo xirfadii barto xirfadaha marka vacation ka ama time-ka uu leeyahay firaaqada ah si uu xirfadana ugu shaqo tago nolosha ku maareeyo aqoontiisana uu sii wato ujeedadu waxa weeye in aqoontuna dhisanto xirfadina dhisanto marka waxa loo baahan yahay in aqoontiina sii wadataan xirfadana aad dhistaan waxaan maleynayaa ardayda halkan joogtay qalin jabisay maanta dhamaysatay courseskoodii kala duwanaa muddada ay soo wadeen annagoo ka wasaarad ahaan ay qiimo weyn noo samaynayso qof dhalinyaro ah oo bartay xirfad deegaanka aaminsanahay inay ku shaqo tagayaan waxaan kaloo hambaleynayaa cid kasta ka qayb qaadatay UNFPA iyo Institution Council Center oo iyaguna fursad siiyay inay ardaydan wax baraan noloshu qiimaha ay leedahay qofku halku qorshaysto waxa guusha gaarsiiya baa la yiraahdaa qofka guusha ama qofkaas halku doonaya qofka wax bara ama wax gaarsiiya waxaan hambaleynaynaa in barnaamijyada ilaa weyn runtii macallimiinta wixii soo bartay iyo cid kasta garabkiina ahay wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxay qayb weyn ka tahay oo waliba ay inta badan la dagaalantay waa jahliga aqoon la'aanta iyo xirfad la'aanta qayb weyn baa jirta wasaaradda kamid ah oo la yiraahdo Technical Vocational Training Department oo lagu talagalay matefat baa la yiraahdaa qayb lagu talagalay horumarinta xirfadaha waxaan idin ballan qaadaynaa wixii fursad ah ee wasaaradda waxbarashada ee qaybtaas khusayso inaad la shaqeyn doono inuu garabkiina taaganahay xirfadahana waxa u baahan yahay inaad ka faa'iideysataan aqoontaas maanta aad barateen waxaan ku faraxsanahay tahay baahidii rasmiga ahayd ee dalka taallay inay tahay baahi laga keenay suuqii deedna idin kale idin baray fursad inaad haysataan in suuqeedii baahan yahay hadday noqoto video editing ka idin baray communication skill ka aad qaadanaysaan tailoring ka idin ku qoran dhammaan xirfadahaas oo kale waxa loo baahan yahay inaad ka faa'iideysataan soo barateen ugu shaqo tagtaan tool iyo waxa aad u baahataan kulli waad heli doontaan waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan sharaf baad leedahay maad leeyahay aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh